Asalaamu calaykum kulan wacan oo wanaagsan meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkanina waa YouTube-ka Maxamuud Ismaaciil. Maanta waxaan doonayaa inaan si kooban uga hadalno waxa loo yaqaano dizziness luqadda qalaad af Soomaalina ku noqonayo oo ay ugu dhowdahay dhawaqa ama wareerka qofka uu dareemo. Waxaa keeni kara siyaabaha loo maareyn karo. Ugu dambeynta barnaamijka kooban ayaan kaga hadli doonaa haddii Rabbi idmo. Waxyaabaha inta badan keeni kara waxaa ka mid ah ear infection ama caabuqyada ku dhaca dhegta saddexda qaybood ee kala duwan, qaybta dibadda, qaybta dhexe iyo qaybta hoose ee loo yaqaano inner earka. Infekshannadaasi waa ay keeni karaan maadaama maskaxdii u dhow yihiin isla markaana ay khalkhalin karaan maskaxda ama shaqada maskaxda. Qodobka labaad waxa uu yahay waxaa loo yaqaano migraine oo ku noqonaya af Soomaali dhanjaf ama dhinac xanuun. Marka laga hadlayo sida ku aragtaan muuqaalka, waxaa dhici karta in dadka qaarkood ay si wacan u garanayaan waxa loo yaqaano dhanjafka. Kaasina wuxuu keeni karaa dhawaqa ama wareerka maadaama oo madaxa isaga laftigiisu ay ku jirto maskaxda, taasna ay shaqadii ama habsami socodkii caadiga ah ee shaqada ay faragelin karto. Qodobka saddexaad oo dad badani ay mogan yihiin isla markaana ay sahashadaan ayaa dehydration ama qofku biyo cabiddu ay jirkiisa ku yartahay. Sababtoo inta badanna dadka Soomaalida ah biyaha kuma baraarugsana waxtarkooda. Inaad biyaha cabtay waa muhiim, waxay ka qayb qaadataa isu dheelitirka, waxaana caawisaa maskaxda si qofku aanu u noqon qof wareer dareemaya. Sidoo kale waxaa dhici karta haddii qofka ay ku yaryihiin biyuhu in xanuuno kale ay kusoo degdegi karaan sida xanuunada ku dhaca kelyaha ama habdhiska kaadi mareenka. Qodobka afraad waxa uu yahay warwarka ama stresska ama walbahaarka qofka ku dareemayo. Kaasina waa uu keeni karaa maadaama aanay si habsami leh loo soo deynin hormoonadii ama dheecaanadii maskaxda kuwaasoo ka qayb qaadanayay in qofku uu seexdo. Tusaale ahaan oo kale taasina ay maskaxdiisa qofka ay dejinayso. Hase yeeshee haddii ay hormoonadaasi ay yaraadaan ama ay ka kormaraan intii caadigeeda loogu talagalay, waxaa dhici karta in qofku uu dareemo warwar ama dawakhaad saayid ah. Qodobka shanaad waxa weeyaan haddii qofka ay hoos u dhacdo sonkortiisa waxaa loo yaqaano low blood sugar ama waxaa loo yaqaano hypoglycemia. Iyada laftigeedu waa ay keeni kartaa maadaama maadada glucose tahay ee sonkortu ay qofka ka caawiso inuu helo tamar ama energy uu ku shaqeeyo, taasoo unugyada ay noqonayaan kuwo daalan isla markaana ay dhici karto unugyadu inay shaqadoodii ay si habsami leh ama si wanaagsan ay u gudan waayaan. Taasina qofku uu dareemo daal fara badan iyo dawakhaad kaga imanaysa, gaar ahaanna marka loo eego sonkorta yaraatay awgeed. Qodobka ugu dambeeya ee lixaad waxaa loo yaqaano iron deficiency. Haddii qofka ay ku yaraado maadada birta ama irontu, waxaa dhici karta in unugyada dhiigga cas ay gaarsiin waayaan unug kasta nafaqadii ugu baahnaa iyo sidoo kale maadada loo yaqaano oxygen, taas oo muhiim ah unug kasta oo ka mid ah noolaha jirkiisa. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeena ku saabsanaa waxyaabaha keena dhawaqa ama wareerka. Haddaba haddii aad ka faa'iiday fadlan subscribe saar channelka, sidoo kale la wadaaga asxaabtaada. Tani kula dambe nabadgelyo.